يقفل ما عاد يلقى سنسا يقفل ما أنت ما مش حمدان هذا يقول لك ما يسوي يقفل أنا أشوفه إسكندر وين ديف مر walba wuxuu niyadda ku hayay baaro iyadana markay aragtay dhaqamadiisa way isaga fogaatay noloshiisa dhan waxayna isku dayaysaa booskiisa inay buuxiso dadka magaalada dhan way dhiirigelinaysay garab ayay siinaysay balse isaga mar walba baaro ayuu niyadda ku hayay xitaa iyada noloshiisa ka fogaatay weli niyadiisa kama aysan bixin uu xasuusan jiray mar walba deefna ilama ahan baaro inuu ka safri karo aniga ahaan waxa ila qurux badan gabadhan inaan u guuriso waliba sida uu dhaqsiyaha badan sidaas ayaan ila feedada wiilkaaga marka hore guuri teeda ka bax lagu ma dirsanine gabadhan sidee wax ka yahay qoftu waa qof weyn aba anigu waan saxanay waan ogaa inay weyn tahay laakiin sideeda maxay u fiirinaysaa wiilkeedaba joogo aniga iga weyn gabadheeda hadalka maamada ay ku dhaaldo ma aan inaa ka xanaaqdid mar walba adiga ii qosol abaayo shaahiga gurigaaga ka garis waa shaah macaan badan laakiin aniga lagama yaabo inaa gurigaaga imaado misna shaahiga saacawo baaro hooyadeed deef reerkiisa wax walba ay dhihi jireen sidaasay taa way ka aamusi jirtay intaas waxaaba ka sii daran mar walba iyagu way isku dhici jireen saaxiibna ma ahayn dagaalna kama dhexeen idinka buuq iyo dagaalka waa inaad joojisaan si aan idin xaliyo haddii aad buuq wada goorma idin xalina aniga joojiya waa inaad joojisaan deef aabihiis markuu dhintay kadib deef adeerkiis ayaa wuxuu isku dayay inuu buuxiyo booska walaalkiis balse isaga siyaasadda kuma biirin ee waa loo diiday waxaana la dhahay ninkan waa nin xun siyaasaddana kama qaybgeli karo sidaasay tahay mar walba wuxuu isku dayaa dadka magaalada inuu garab siiyo haddii ay dhibaato haysatana uu dhibaatadaas ka badbaadiyo wuxuuna xasuusay dartaaranka walaalkiis oo ahaa in magaaladooda ay difaacdaan waa imaanay soo dego waa ku salaam adeerka waa laga qaaday waa soo dheeraata maanta xoogaa beryahan dambe xoogaa waa iska mashquulsanaa soo maha arrimo gaar eh oo micnaha aniga ii khaas eh balse hadda martiyaa ila socoto martidaasna waxay rabaan adiga inay kula kulmaan haddii ay suurtagal tahay ugu horreyn horta aniga fadhigayga inaan ka kacaha iga sugin runtii weli isma aadan badilin adiga booskaada ayaa taagan tahay waa isla weynidaan ka wadana laakiin dhib mala hadda iyagaa amar siinaysa soo socday kaaliya waa kuwan ay istaaga maxaa sugaysaa istaaga idinkan amarka qaata waa idinka qaaday bas waa idinka qaaday adiga horta waxaan kaala yaabay weli sidiyaab uu madax ka kantay gabartay aabbaaga madax adeega ma kala warantido yaakhay waxaa fiican xaaladan isku jira inas iska soo dejiyo aniga usan si fiican aan isku faanay yaakhay adooga wax fahamsii waxaa siisaa habeenkii bocorka titowsi beerkana uu dago balaayadana iska dhaafo bocorka titow ninkii cuno maskaxdiis waa faysanay kaaliska aragaan ku dhahay marka xaal kale xasili meeshaan beesa taala gabartay adooga la hadal waaya adeer bravo saana karoa gabar iga dheh aab waan sii baxay okay gabadheeda ar saaxiibkayga gabar khatara dhashay akhay darawalkaada innaba caadi maaha dhaqsi gaarigoo kaaga sii hormaray waan arkaa laakiin ingiriiska xukuma maahan look before you leave waadna fahmi kartaa soo ma waan arkaa ingiriiska inaad u dhagan tahay balse ma laga fiicno waxaa ila fiican aniga soomaaligaad ku hadlaysa inaad isticmaasho waa taladeedoo keliya ulaalna kaxee run ahaantii milan wuxuu ahaa wiil aad iyo aad u wanaagsan baaruuna mar walba wuxuu jeclaa inuu garab siiyo oo uu ka agdhowaado balse maxaa dhacay baaru waa laga afduubtay oo waa laga watay walaal gabadha waa la afduubtay dumaasha waa la afduubtay qoy kala badbaad haduma ii sheegaysi waaye naga tag abooraala kala gamisoo kaliya wax kuma leed xabadna waa inaan kugu dhiftaa walaal waa xabad aan ugu dhufan abooraala waa ku bariya qalada galiski caafi walaal nambar qabsaataadii madaani baro maxaad ugu jirtaan maxaad marka sii soo dabagalaysa maad iga hartid waad iga ninka akhbaar saxo markuu ii soo gudbiyaan adiga dartaa gacan saxbad ugu dhuftaa kala soo kaamus gacanta le kaaga dhacda haddii wadnaa kaaga dhicleed ka hor mar walba milan wuxuu isku dayay baaro inuu cafis weydiisto war dadkan jinni ayay qabaan alasaynimadan ayayna ballaminayan maxay ula jeedaan howl ma ka dhacda miya marka xilligaana ballaminayan saaxib dulqaad yeelno xoogaa dulqaada loo baahan yahay maxaa waay dulqaadka wuxuu u baahan yahay in la socono laakiin aniga dulqaad weli ma aanan socon weli ma aysan imaan fiir way iska maqayin annagana waa nimid meesha kama yeelayaan ku dhaadii ay imaado ayna soo daahan way saaxib seetaan soo dhawow salaam waa ka qabo halaabtii geli
واكو قل شيء وربنا يا كال صوصا ها sidaan ma soconaysa wiilkeyga waa inaa isbeddel samaysaa waana ku khasban tahay aniga soo maa siyaasadda waan ku soo laabanayaa garab ayaanu ku siinayaa laakiin adiga inaad isbeddeshid waa khasab saan haddii ku sii socotid anigaad bay kharibaysaa marka xaaladda waa inaad dejisaa sidaan le inaad ku sii socotid suuragal maahayn aawe adiga inaad ninkan wax fahansiisid waayo oo uu isbeddel sameeyo hadduuna isbeddel samaynin wax soconaya ma laha haa aniga isdeji adiga xoogaa nasiya hay laakiin waa ku khasban tahay adiga inaad xaaladda sidaan ka beddeshid aniga waa yeelaan noqday qofkii bedeli lahay waa adiga marka adigii haddii sidaan aad ku sii socotid ditore ditore xoogaa isiira dejiya maxaan isdejiyaa ninkana dhiiggii uu kicnaa awgeli afka awgeli annaga mar walba waxaan ku dadaalayn adeer caafimaadkiisa sidaas darteed dhakhtar khaas ayaanu dalabnay waxaan oga wacnay maraykanka balse isaga caafimaadkiisa kama fikireen mar walba wuxuu ka fikiraya deef wuxuu raba deef inuu isbeddelo mar walba ugula hadli jire wuxuu ku lahaa deef isbeddel samee xataa cunugiisa wuxuu ka jeclaa deef wuuna kaga kalsoonaa runtii walaal deef run ahaantaani adiga aabbu wuxuu jeclaa mar weliba inaan isku dabeecad naqano laakiin haddii aan isku dabeecad naqan weyne aniga taas khalad miyaan ku leeyahane mideeda kale aabbu mar weliba wuxuu jeclay adiga inaan noqoto qof fiican siyaasaddani aad dib ugu soo laabato sida walaal barnaad oo kale barnaad hadda waa ujeedaa waa nin wanaagsan barnaad isaga xataa wuxuu ka mid ahaa dadka siyaasadda ku jira balse ma jecleen si daacadnimo inuu u shaqeeyo mar walbana waxbuu iska daba wareejin jireen horta waxaa ogaataa aabbahaaga inuu ahaa oday wanaagsan adigana waxaa lagaa rabaa aabbahaaga oo kale inaad naqatid way kan xaadiran ahaaniga wiilkayga adiga halkee u socotaan may adaan ku raacano waayahay hawshan wax ka soo ogaanay sikada waa meesantiin hadda ay meesha ka soo baxeen horey ayay inoo socda annagana waynu dabagalayna waxba hawlwelin okay warkayga waad fahantaan fila war marwe sujita 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 sujita oo kaliya ayaan rabnaa marwe sujita marwe sujita marwe sujita hadalkayga si fiican u dhegayso waxaan rabaa meeshaas qalalaasii buuq inaad ka abuurto mid kalena ogow haddaba aniga waan kuu sheegay ma raba deef inay wax yaroo dhibaataa iga soo gaarto hadalkayga soo ma fahmin waa inaad ilaalisaa mararka qaar nolosha waxay ku tusinaysaa adigoo waddo qaldan ku socdo haddana wax sax samaynayo anigana runtii taas kuma qaldanin wax walbana waxaanu sameeyey inaan wax hagaajiyo oo keliya meeshaasna qallaaso ayaa ka dhacay sidaan rabana wax way noqdeen balse waxaa kaloo jirtay maamadaas inay ahayd maamo aad iyo aad u wanaagsan wax fiicanna samaynayso amar yaroo aniga aan bixiyey dartiis ayaa qallaaso fara badan loo sameeyey marwadaasna dhaawac ayaa soo gaaray ugu dambayntiina isbitaal ayay u gashay dhibaatadaasoo dhan aniga ayaa ka dambeeyey balse waxaan islaa wax xalli oo keliya iyada wax walba aniga dartay ay ku dhaceen haddana waan ka xumaa dadka sujaataa mar walba taageeri jira oo garabkeeda taagnaa isla dadkaas ayaa ka soo horjeestaoo dhaawac u geystay xaaladda waa isbedesha adigana meeshaan danka uguma jirto dadkan waa inaad la hadasho dhegaysta dadweyne si fiicanna idin dhegaysta ninka mar dhow doorashada u sharaxan ayaa idin khudbeen doona isaga dhegaysta ma waxaad moodeen dhagaxda aad soo tuuraysaan inay xal ku helaysaan kuma helaysaan soo tuura laakiin xisaabta ku dira halkan aniga aabba ayaa ka talin jirin waana ka talinayaa tuuryada joojinina
صوت maalintaas deef isbeddel fara badan ayaa ka muuqday wuxuuna u hadlayay sida aabbihiis oo kale shacabka ayuu la hadlayay wuu dhiirigelinayay wuxuu lahaa dhulkiina idinkaa iska leh walaal dhulkan idinkaa iska leh wax badanna dagaalla iyo burbur fara badan ayaad soo marteen maanta waxaan rabaa heer sare inaan gaarsiiyo dadkan waxay rabaan dhulkiina inay la wareegaan waxaan diyaar u ahaa dadka ku tumanaya xaqiinna inaan ka hor istaaga adigoo soo dhici xaqiinna haddii aan ku dhinto anigoo xaqiinna u dagaalamayo taasi diyaar ayaan u ahaa inta kale noolanaysa ayaa ka badan waxaana diyaar u ahaa dadkayga iyo dadkaygaba inaan u dhinto hanaalaada ballankaasna anigaa idinka qaaday la socda hanaalaada deef dadka markuu dhiirigeliye kadib wuxuu ka mid noqday siyaasiyiinta gobolka wuxuuna rabay in la doorto wuxuuna u sheegay inuu u buuxinayo booska aabbihiis maxaa la fikiraysaa halku soo kayma maxaa dhacay keligaha walwalsani wejigaadana ilama fiicna war adiga maxaa ku soo celiyay ii sheeg bal khamrigiina waad iska dhaafta ayaan maqlay run miyaa midaas qofka hadduu go'aan ku gaaro waxyaaba xunna uu iska dhaafo wuu iska dhaafaya anigana khamriga waan iska dhaafay haddeeba sidaas taa walaalo anigana waxaan kaa codsanaa inaa iska dhaaftid adiga seen kuu dhaafaa qalbigaygaa tahay khamriga waxaan u dhaafa waa adiga dartaa intee u socotaa kaalay dhegaysano aan wada sheekaysano baaruu yaaqay xanaaqan iyo dabeecad xumadan iska dhaaf saaxiibkayga horta hal tal iigaho cad maskaxdaada ongolofaatay naqatay gabartaada booskaaga ku wareeji gabadheeda hay saaxiibkayga hadalkiisa waad maqlaysaa adigu jawaab marka gabadheeda dhagaha maa laadahay adeerkaaga hadalkiisa ma maqlaysid miya deef waan ku salaamay run ahaantii aniga waan kuu hambalyeynaya waxaana kuugu hambalyeynayaa maadaama aad isbeddeshay horumarka aad gaartayna waan ku faraxsanahay teeda kale lacagihii adiga aad lahayd xoogaa arrimo ayaan ku xalxaliyey deemihii lagugu lahaana waan kaa bixiyey kista hartayna mahadsanid meel ayaan koo dhigay caawa labiskaa wadatay iyo codkaada intaba way is leeyihiin waa shidan tahay anaa ku dhahay runtaa miya waa mahadsan tahay wiilkaygii maadaama aad kursigan ku fadhiisatay ma haysaa doonta inaad wax ka yeesho meesha haddii aad fadhiisatay waxaa loo baahan yahay inaad caqli isticmaasho sababtoo ah meeshaan caqli ayaa lagu joogaa oo ninkii martida ahaa yimid waxaanaad ku dhaqaaqaysa makula qurxoon yihin waayay maxaan sameeyaa adiga la ii sheeg taladeeda haddaad qaadanayso waxaa ila qurux badan waxyaabaan inaad faraha ka qaaddo oo iska dhaafto ma shaqadaan iska dhaafaa maxaan kaloo sameeyaa ii sheeg isceli mise laabtaada ayaan soo galaa muddo kadib jaanis aan kugula sheekaysto ayaad disiisay waan ku qanacsanahay waxaan kaa rabaa markaad tuulada tagto kadib dadka inaad adiga la hadashid oo aad soo dhowaysatid markaas kadib adiga garabkaagagay ahaanayaan wax walboo loo sheegan kaama tagaayaan anigana waxaan rabaa kalaxda inaad guulaysatid isku day
inaad wax walba sidaan raba ka dhigtid markaas kadib adiga waad guulaysanaysaa anigana wax walba waxaan u sameynaya horumarkaagaan ku faraxsanahay mar walbana garabkaaga ayaan taaganahay dhowaan waa baybaxaysaa halo haadif oo taleefka maxay ka qaban weysa waan mashquulsanaa ka gudub tuulada nagu dhegan ayaa waxaa looga baahan yahay gurmud waxaana kaaga baahana adiga inaad sida ugu dhaqsiyaabad ku tagtid ii dhaaftaas ii dhaaf oo keliya ayaad leedahay saas taana meesha aan kuu dirin ma tegaysid shaqada markaa dhammeeyo kadib aniga aada igu hadlay halo soo hadlo deef maxaa dhacay guriga kuma soo laabanaysa ma imaanay tuulo meeshaana wax iiga qabyaan deef adiga ma waalatay tuuladaas waa halis nafsadaadana baxar ayay ku geli kartaa ciidanka ugu filanna ma haysid go'aankaas alxasil waan gaari iska dhaaf adig محاوس ودنا بابون من وطن قلنا تسوح وضاكن محاوي كمان ونسمي wiilkaas mayan inaad tuulada sugrid nafsadiisa ayaa halis aniga wax qaldan sameeynayo wixii loogu talagalay ayaan samaynayaa wiilkaygana hawshan u diray ayuu qabanayaa muxuu wax qabtaanay kaas wuxuu qaban lahaa ayuubuu ku dheelayaa shaqana ma qabanayo wiilkaas haddaanu wiilkaasi qaban wax badan ayuu halaynayaa wax badan ma halaynaayo adiga ayay kula tahay inuu wax badan halaynaayo laakiin wax buu toosinayaa waxa keliya u baahan yahay waxay tahay in la dhiirigeliyo dhiirigelin hadduu helo wax walba wuu hagaajinaa wiilkayga waana wiil fiican hawshii loogu talagalay ayuu ka soo baxayaa ورسيد دوريا واحد يكاد قيمة سوا ninkaas hadduu dhib ii geysta ka dhibaato kuuma geysanaya adiga ha iska hadlin oo keliya anigaa og sababtoo ah hooyadiisa waxay igu tidhi wiilkayga waxaan rabaa inuu wiil wanaagsan noqdo balse wuu noqon waayo wiil wanaagsan adiga soo maaha aniga ayaa kuu joogo lagama yaabo intaan aniga noolahay inay dhibaato ku soo gaarto anigaanba oggolaanaynin wax walba ha igu qaadato ma ku gaaraysa dhibaato adiga murugtan faraha badan iska daanno sidee murugta isaga dhaafaa ninkaas oo wiyacay jugulay aniga joogay aniga xalinaya wax walba igu hadlay ha walaal meeshaan iskaga tag waan kula hadla aniga sababtan uga tagay maxay tahay meeshaan meesha ka talinaysa ma ayaa ka taliya marka meeshaan aniga ayaa ka taliya haye sida adigu wuxuu rabtid inna ku dhacan lagama yaabo qaab sidee uga talisaa meeshaan markii inaad iskaga tagta ayaa habboon haddii kale wax xun ayaa igla kulmaysaa waqtu waa kuu soo bax yaa lakeen soo bax warna sii daa wasiisi sabit كم الله كيسان سبعي ورسيدي اسكجا أبو حنون مياه أنا وكم أمري يقرأ قادو كدادين سان لك كود بينس إيجا قادم يتكيس يا قاي كلام هلا عرّيس أنا لعب سنة أنا قاعد يدين جوج أنا بعرف ستان الله بباهنا أنت عيدك كيما نيان أنا قاعد كان جوج دي بس صنوع ذكر عليه ورمضنا هنا ورمضنا هنا ورمضنا هنا ورمضنا هنا ورمضنا هنا ورمضنا هنا أنا سنتي ورمضنا هنا وما سنتي ورمضنا مع هذا بس هل كان كويك ورمضنا هنا هل كان كويك هذا ورمضنا مع هذا ورمضنا بس مركه هل كان كويك هذا قدها كلامي warheed aniga marka hore inaad cabsantahay ayaan kuu qori jiray balse hadda caadi ayaa tahay waxyaaban aad samaynaysa maxaad ka wadaa isha adiga noloshaada maariyaad kar samay ku dhihin waana maaraynayaa see waay waan ku dhahay noloshaada maariya balse ku marin laba askari inta wadata meeshaas halistaa tag haddii wax ku soo gaari lahayn ka waran maxaad samayn lahayd
kabtan waa ku sanaa waan kaa qaaday baryaan dawaalis waay sooma marka sidaas darteed waan kuu dhoobnaa kaaba waxaan maxaa may hadiyadan adigan kuugu talagalino baash waaya macmacaankii waa maasantahay inaad soo dhibto mahin balse waa kaa qaadanaya ise waa shanqara maqle ayeeye maa jiifto ayeeye ka yar waa soo dhaaf see waa soo fiiri haa soo gal axishooni wata ma fiiri waa gambohaysaa waa lagaa qaada walaalka waa ku salaama wuu kudhin haddale ma wahay si caajisay u dhawdaya laakiin ma ogeen iyada meesha inay joogto sooma haddii aan ogaa lahaa may dhib male iyadaba u soo dhiibi lahayno aawi asxaabti kale inta dhiman alaabta u soo xareeyaiskana baxaya iskana miiska aliskeedu waa malayna meesha hore u socda waa sii baxnay hayay nabaday isoo baxay fiiri ayay ka yar meesha maba joogta ayay karta sheegaysa waad yartaa sababtoo xaaskayga mustaqbalkaad noqon rabtaa inaan dhahna ku khasbanayse waa inaan ku sarxa waay sidee ku ogaatay marka xaaskaaga mustaqbalka aniga inaan noqonayo yaase kuu caddeeyey inaan ogaadan u baahanayo ii sheeg bal yaa diidan waan ku tusaa halkan ayaa caddaynaysa inaan noqonayso وردفكاينا وردفكاينا هقوليستو 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 aniga diyaarayaan waa inaan marwadaada noqdo balse marka hore adiga waa inaa hadalkayga aad qaadataa mana rabo qallaaso dambe inaad samayso وزيركنا وصباحي ما دام وزير كاسمالي وعلى ذيك الرباعي ذيك إن سود واسين بوخ الناس كدفتي وزير كات هرتين استغي على سود ويو وزير كنا هقول السماء وين وزير waad ku mahadsan tahay maadaama aad noo timid deefna wuu ku farxayaa marka uu adiga ku arko deef arrin wanaagsan baa samaysay waana kaaga mahad celinaa wiilkayga saas laga rabaa waan ku salaamay hay soo dhawaade ka lagu dhufay lacagteeda ka maqnaa arooska qaban qaabe qaada ugu yar iyo alaabta guriga looga baahan yahay kumbad aniga ka soo dhigay soo dhawo hay waa dhawo hay hore soo socda soo dhaqaaji wiilkayga ma ahan adiga gabar aad yaraantaada istaqaaneen inaad guursato ha ii qaban adeer ha ii qaban ma soconayso maadaama aad go'aansatay gabadhaa inaad guursato waa inaad u sabartaa waana ku khasban tahay 70 ku kaftamay qaladkan waan gale aniga waalidkaada ayaan ahay waa runta beenta maaha laakiin soo qaladka ma qiran qaladkaada inaad qirato waxba nooma soo kordhinayo maadaama aad go'aansatay gabadhaa inaad guursato annaga waxaan ku khasbannahay inaan sabarno weliba adiga dartaada xageed u socotaa meelaad aadaysid bisa waa soo hawagedisaa fariiso adeeray maasoma annagana hadiyad ayaan u keennay baaro iiga waran sug balan fiiriya hadiyadda noocay tahay baaro xaaladdeeda aniga kaa aqaanayo gabadhaasoo dabeecad xunta anaa soo dhammayna iska dhaaf dhibla haddii aad la soco weyse aniga ayaa la soconaya murugta iska daadaya gacantaadiga qad gabadhaas 6 talaa kadib uga degadii kale adoo noolan ku dubahaan ku dhahay maxaa jira saaxiib gacantana caajis waa la baroobaynaye kaale adiga aniga maxaad iga soo horjeesta cadaawo miyaa naga dhexaysa anigii adiga dad saaxiibba ayaan ahayn maxaad ku keentay aniga inaad iga soo horjeesato aniga maba kaa soo horjeesanin bishambar waaniyo bishambar ha ku eer sheeganin bishambar waa nin walaalkee adigana cadaawad ayaad waddaa war aniga saaxiib maxay tahay sidaan u hadlaysid maanta sidaan u hadlaysid looma baahna aniga haddii aad isku daydid inaad cadaawo iga samaysatid waad i baranaysaa abbajoonka aqoon uma lihid hadda waxaan kuu ron nafsaddaada inaad iga badbaadsato haddii kale weji kale ayaad arkaysaa baaba iyo burburka halkaan ka dhacay aniga waxba igama gelin dunida hal gabar oo keliya ayaa ii joogta haddii farxad waayso waxaa igu ballanna noloshiina inaad farxad waaysaan idinkana cagajugleynta siyaasadda le lagu ogaaya gurigeygna ma iigu keentay saaxiib sidee kaa noqotay adiga farxad aan ku cabno farxad aan ku cabno
aniga waxaan idinkuugu wac arrimahan inaan ka wada hadalno qof walbana xaqiisa wuu helaya waxaa loo baahan yahay keliya inaad isdejisaan dhulkiinana waad helaysaan keliya deganaan muujiya waxaa hagaajinaha leedahay dhulkeena adigaa u dhacay maxaa hagaajinaysaa war maxaa ku hadlaysa amsurya war neefsada nafaa leedihiin neefsada kula hadlaysa adigana waa ka dhex qaylinaysaa sooma lagaa dhex qayliya aamusa u fiirsaha saaxib dadkan sharaf iyo ciise markii loo yeelo ayagana cirka ayay issii geynayaan war dhul iyo waxaan loo joogin ayay ka hadlaayaan anigana waxaan rabaa inaan ka dhiga dad qiimo leh laakiin waxay og yihiin ma laha mana istaahilaan in la qiimeeyo dunida farxadda iigu weyn waa inay gabadheeda farxad heshaa maalintay ayada farxad weyso dunidoo dhan farxad way ka dhammaanaysaa aniga waxaan rabay deef shirkaddiisa inaan soo xiro laakiin isaga mar walba baaro ayuu daba cararayay iyadana waxay rabtay labadooda jaayid boor inay isla aadaan anigana sidaas ayaan uga faa'iidaystay wax walbana sidaan rabay ayaan ka dhigay runaantii aniga ninkaan deefal lahaayo uma oggolaanin tuuladeena inuu soo galo maxaa yeelay khiyaanoola waay wuxuu rabaa sidii aabbihiis uu noo dhacay oo kale asigana inuu noo dhaco anagana middaas ma ahan midaan u dulqaadanayno annaga dhulkeenna waan u dagaalamaynaa waana u dhimanaynaa mana laga yaabo ninkaas inuu meeshan ka taliya mise uu maamulo meeshan keliya waxaa maamulayo nin wanaagsan annaga dhammaanteen waxaan go'aansanay inuu na maamulo nin dhulkeenna u dhashay ma ahan nin dibadda ka yimaado oo shisheeya inuu anaga noo taliy middaasna ma ahan midaan u dulqaadanayno waxaan ka xignaa dhimasho waan dhimanaynaa laakiinse nin dibadda ka yimaado noma talinaayo hawshaan ma rabo inay wakhti kale sii qaadato sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad ku soo afjartaa adiga ayaan kuu xil saaray mudan adiga waxba ha ka baqin hawl marba haddii aan aniga gacanta ku dhiga hawshaasi waa hawl soo dhammaystirantay waxba ha baqin marka adiga isdeji anigoo keliya iigu ogow ma waalatay maxaad samaysay anaga ma waalan laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay dadka magaaladoo dhan waa la dhameeyey waa la lahay wax loo rabtay ma lahan dadkaasi maxaan samaynaa marka maalintaas dhibaato ayaa dhacday dadka masaakiinta ahaa waa la baabi'iyey wax walbana sidaas ayay ku qasmeen cid wax ka qabatana ma jirin dadkoo dhan way qeelinayan waxay dhaheen garab hana la siiyo bax orod duumo ilaa aan ka soo laabo ku dhahane ma ii soo laaban karti haddaba waa inaad isqarisaa okay waa marka ugu horeysa dhibaato noocan aan la kulanno waayahay tala keen adiga maxaan samaynaa hadda aba maxaan samaynaa maxay tahay wax loo baahan inaan wax samayno waad u jeedaa xaaladda aan ku sugannahay isdeji adiga aba maxaan isdejiyaa ii sheeg gabadheydii hadalkayga si fiican u dhegayso hadalkan hadda annaga ayuu nagu egyahay mar haddii uu dibadda gaaro si aan ku xallinna ma laha walwalka iska daa jaandani aniga waxaan aan samaynayo dhan adiga dartaa ayaan u samaynayaa waxaan aniga haayoo dhan adiga ayaan ku haayaa adiga oo keliya ayaa iska leh
aniga ma aqaana habeenkaas sababtaan u fikiraay balse muhiimaddeedu waxay ahayd deef inaan badbaadiyo oo keliya wax walbana isaga dartiis ayaan u samaynayay waxaan rabaa deef inaad badbaadisid sababtoo ah dhibaato fara badan ayuu ku jiraa qofka keliya oo badbaadin karana waa adiga ii badbaadi waa ku baryaaya deef aniga muhiim ayuu ii yahay run ahaantii dhibaatada deef uu geystay mid laga badbaadin kara maaha balse haddaa ugu tala gasho waa badbaadin kartaa ila shaqaysa waxaa suurtagala wax walba aad u baahatid inaan diyaar kaaga dhigo adigu sidaan keliya lagaa helo deef maana kumanaan deef annaga kuu saarayn deef waad ii badbaadisay wax walbo aniga aan sameeyeen isaga dartiis ayaanu sameeyey iyo si uu iigu badbaado waan mar labaad u hanti waana ku faraxsanahay runta sidaad warkaba ku maqlaysaan qofkani waxaa lagu eedeeyey in gurigiisa lacag fara badan laga helay waa in arrinkan wax laga qabtaa sidaad arkaysaan shacab fara badan ayaa aad ugu qeynaya ninka gurigii laga helay haddana lacagtaasi waxa ay tahay iyo annaga ayaa idiin soo gudbinin wixii akhbaara oo arrinkaa ka soo baxay wax naga sheeg tuuladu waan ka soo fogaan matalaad intaasna way kee soo kac adig maxaa kugu dhac maxaa la jiiftaa iga wareeg naga joog war soo yara dhaqaaq adigu aabe aawo dhibkan oo dhan adigaana geliyey hadda ninkan haddii uu af kala furo annagoo dhan baxar ayaan ku jirnaa waa in tallaabo aad qaaddaa ma aragtaa dhulkan weyn aad arkaysa inta ilaa iyo inta aniga ayaa iska leh aniga waxaan rabaa dhulkan aad aragtay inaan adiga ku siiyo laakiin adiga maxaad samaysay maxaad ii khiyaantay aniga khiyaanada aad samaysay maxay tahay xayawaan ayaata waryaada iga noqdaan ku dhahay waa shansi dadkaanoo dhan aniga waxaan isku dayay inaan xalliyo adigana maxaa samaysay dadkii o dhan xabsi ayaad ku aroorisay maxaa kugu kallifi taas inaad samayso wixii dhacay waa dhaceen adiga ha u bixin aniga waddo kale ma haysanin waan ku qasbanahay inaan sidaan sameeyo laakiin adiga hal mid samee degganaan oo keliya iigu kaalmee haddii aad adiga iswaashid oo anigana aan iswaalo wax noo hagaagaya ma laha mar walba waxaa roon aniga adiga inaan isfahanno isfahankana waa shay qaali ah adiga hadda xaggee u cararaysaa waan kula hadlayaa hadalkayga si fiican u dhegayso adiga ma waxaad mooddaa aniga hantidaydoo dhan inaan deef siiyo deef oo keliya ma siinin adigana hantidan waxbaad ku leedahay adiga marka walwalka iska daa abajoonka haddii ay wax soo gaaraan aniga maxaa ii dambayn doona waxba ha ka walwalin ninna marawo mu eka ninkaan baaru adeer xaaladiisa waa halis isbitaalku yaalla annagoo la sii socda hadda saasay dhihin isbitaalkan dhex jooga adeer kamuu ku jira waa inaan fiira waa ku qasbanaya baaru see u hadlaysa adiga
waaya inadeer arrintan wax ka qabo adigoo keliya ayaa wax ka qaban kara deef anaga waxba kama qaban karna arrinkan si ninka la dhahay wuxuu yidhi dadka siyaasadda ku jiro hadday arrinkan ka hari waayaan nafsadooda ayaa khatar ku jirto haddaba waa inay is ogaadaan digniintaas ayaa la bixiyay adiga wax qalada miyaan sameeyey aniga marka adiga ma la socotaa sidaadaba waxaa lagu diray inaad wax soo xaliso laakiin maxaad wax xalisaa waxbaad qaribtay mudana siin dhibkan siduu ku dhacay war hadalkayga si fiican u dhegayso dhibkan oo dhan wuxuu dhacay markii siin la xiray arrinkan waa inaan wax ka qabanna haddii aan wax ka qaban wayna khatar ayaan ku jirnaa waa hagaag ninkaas waa keligiis waxaa loo baahan yahay arrimihiisoo dhan ina aad la socotid arrin aad u foolxun oo shalay dhacday ayaa waxay dhalisay buuq fara badan waayo meeshaasi waxaa ku baaba'een dad fara badan dadkaasina ilaa ay hadda cid dishay lama hayo booliiskana baaris ayay hayaan balse waxaa la sugayaa jawaabta ay booliiska ka soo saaraan iyo inay gacanta ku soo dhigaan dadka dembigaasi ka dambeeyey iyo waxay ahaayeen iyo meesha ay ka soo waxaad samayseen wax wanaagsan maysan hayn tilaabadan qaldan maxaad u qaadeen tan kale arrintan adeer sababta loogu sheegay maxay ahayd yaase idiin dirsid adig cabitaan miyaa cabaysaa haa xoogaa madaxa ee wareersan waa liigu kicisasan cabitaanku isticmaalaya hooyadee waa xanuunsantaha aabbaheen xabsi ayuu ku jiraa saasitaana wax kurbaa kuma heesa adiga ya eedda aawe meel ma ku sheegtaane adeerkaas aawe familkii oo dhan aawe ii sheeg bal waxaad igu tirahdeen adeer wuu xanuunsan yahay hadduu xanuunsan yahay xanuunka miyaan ka qaadi karaa aniga waa maya ma adeerka inta maskaxdiisa aan degaan lay adeer soo kaca ma soo kicin karo wax kaloo samaynayaa jira wax kale oo siyaadaha keena bal oo ku soo kici karo duqaas anigu ma kicin kara maxaa dhacay waa xanuunsan yahay waxaan u qaban karaa abayatee ma jirta marka aniga buuqiina way igu batay ninkaygana aniga ayaa soo badbaadsan garbaan iga baahana haba yaraatee hooy istaag intee u socotaan laabanaya kaale fariiso isdeji deef adeerkaa wuu xanuunsan waa la gartay balse aabbee ciqaabta muxuu u marayaa ii sheeg anigu aabbaha dhibaato ma aanan gelin dembiga isagaa afkiisa ka qartay aqay maadaama dembiga uu qarta aabbaha waxbuu iska ogyaha waxbaa jiro sidee ku awoodda deef inaad aniga sidaan ila hadasho aabbeene aad u naxariiso weyso war ma ogido aabbee inuu yahay qofkii adiga ku soo koriyey intaasu sanna ku soo xanaanaynay maxay tahay marka sidaad u hadlaysid baalu qalad iga aaminsantaha laakiin waxaan sameeya ma aqaan adiga hadda ka hor cagta ii saare oo waxaad igu tiri siyaasadda waa inaad ka qayb gashaa wakhti walba waxaadna igu tiri dabeecadahaada beddel waan beddelay siyaasadda sideedaba waa sidan way ila gadoontay beeru maxaan sameeyaa adeer intuu ka caafimaada waa inaad jawaab iga sugtaa adiga booskeeda haddaa ku jir leed ma sugaleed middaas ayaan ku weydiinaa jawaabee maxaad aamusantahay farqiga inoo dhexeeyaaba intaasa aabbaa booska uu taagan yahay aniga hadduu aabbahay taagnaa laha waxyaabaha fashaxan kuma uusan dhaqaaqin marnaba uu ka xishoolaawa hadalka aad maanta tiri maankaaga ku haysa ayaan ku dhahay baaru dhegeyso baaru ha carari yaaqay dhegeyso baaru madax adeegan jooji xaggeed u socotaa maxaad u baahan tahay Hello Maru Jendermuki. Baaro meeshaan imaadaan ku dhahay akhbaartaasa ku haya. horta jahwareerkan iyo isku joogsagan aa ujeedid barmaan ninka la dhahayaa ka dambeeya
taasna anaa ku hay adna meel kale inaad ka raadisid maba loo baahnaba khaskan aa ujeedinda oo silee wadaaba laakiin sidee siyaasi waa siyaasin wax walba ka filo sidee maba soo geli karto sooma wax walba meeshaas ka dhacay ninkaas ayaa ka dambeeyey dhibaatada meesha ka dhacdana isla asigaabaa dusha ka saaray markaa u qaban adiga laakiin gabarteeda murugta iska dhaaf an intii jooga adooga wax ma kaa laaway anaa soo badbaadina arrintaana anaa xalinay way kastaan umalaynaa sababtoo adoogaa saniima ninaan saaxiibeen laakiin sabab mataala yaqay ninkaas anaa hubo laakiin waxyaabaan ama been yihiin beenta lab lagu baab maraa moogidoo yaqay beryaan been la shaqeyna eesha calaa hees yaqay wax walboo dhacay aniga dartay ayay ku dhaceen qallaaso fara badan ayaana abuuray taas waxaa sii dheer aniga waxa walba waxaanu samaynaa waxay ahayn deef si aan u badbaadiyo balse waxaa dhacday ninka anigaan isdhahay garab ayuu ku siinayaa ayaa rufyaan u noqday barmaad taasoo anigana dabarjab igu noqotay isma leen wax walba sidaanay isku beddelayaan balse khiyaanada ninkaasoo qiyaamo ayaa wax walba igaga ciyaartay nagaraal naqmarbo aabbahaaga wuu uu geeriyooday runtiina wadnaha ayaa istaagay saas darteed ayuu u dhintay war maxay tamaan indhahayga qabanayaan ninkan dhaawacaya masaakiinka haddii isbitaal aad uga adinaceedeen xilligan muusan geeriyoodin balse geeridiisa adinka ayaa ka dambeeyaan dhihi karaa sababtoo waad iska daawanayseen maxaad u daawanayseen maxay tahay waxuusnimadan iyo waxaad ku dhaqmaysaan aamus afkaada hayay kala furin waad qaldantiin dhammaantiin wax walba waa inaad ka fiirsataan baru raalli hawya aniga kuu joogo waxbaan ka welwelin okey baru niidad qarsoga baru laakiin aawe marwada dalada u soo diyaariy dhaqsada idinkana maxaa sugaysaa waraa soo qaada meydkaas qabo maxaa sugaysaane ordaha gaariga saara roobka lixiyaa cabitaanka dhankeeda kacab sidoo kale anigani ha iga reemaya waad u jeedaa dhaladeeda gacantaan ku wataa baaro aabbeedaa ku soo korsaday soo maha adiga waxdina waa u qabowysa odagoo dhibaataysa labadiinaba caawa dhaladana u soo wada dhammaanay baaro goordho labadiinaba ninaa naga qaadan doono anigii adigane waxaanna daarmi doonta tu noloshii laylen baaruwa way naga fogaatay sooma oo meel fogaya naga aaday sheekada waxay ku soo dhammaatay ceynkan aniga adiba inaan u wada ciidno iscelihe ceynka isku dhammaatay sooma
baaru raalli noqo noloshaadana maanta wixii ka dambeeya xor baad u tahay ninkaa doonto waad guursan kartaa kuguma dhegin waan ku fasaxay biniya weliba naga wada meeshaan soo socda war maxaa waay naga joojiye muusiga naga jooji anaga dhaawacan muusiga nagu sii daraysaan qodax maa nagu dhigaysaan baaru maxaad samaynaysaa maxay tahay dhibaatadaad ku dhaqaaqayso gaf yaran kuu geystay miyaa labadeena nafsadeenna u ciqaabaysaa looma baahna taas inaad ku dhaqaaqdo waxaan kuu soo go'aamin lahaa nafsadaada inaad maarayso ninkanaad guursato anigaan ku guursan laakiin ninkaasa guursan afkaaga iga xir maxaad u xiraysaa afkayga maxaa yeele waan ku jeclahay xaqiiq may ka tahay taas haa waa iga dhab mana raba hadal kulul inaad igula hadashid qalad yaroo adiga aad gashay ayaan aniga nolosheeda qof kale u qorsheeyey adigu waad la socotay ninkaas dembigaasoo dhan inuu lahaa saasi tahan aabbey ayaa dusha laga saaray maxaad tilaabo uga qaadi weyse ii sheeg maxaa dhacay arrinkan beenta ayaa kaa dhaadhiciyey mala socota aabbaha dembiga inuu isaga dusha iska saaray cidna dembi kumaysan ogin aabbaha kelmadahan afkaada ka soo baxay qalbigayga dhaawacayn mar damba hay ku dhihin aamus qaladna ii fahmayaa bannaanka u bax waan joogayaa waxaan ku dhaha wejigaaga iga qari ii kadi naga dhafe deef adiga inaa walowsho looma baahna gabadhaasna tilaabo qaldan ayay qaaday ma qaldaneen gabadhaas wax walbay ku dhaqaaqday way ku saxneed sababtoo ah gabadhaas niyadda anigaa ka dilay waayo aabbaheed ayaa ka geeriyooday halkii aan garab ka sii lahana waa daayacay ma aqaan hadda waxaan sameeyey deef waan ku baryaa isdeji adiga aniga may iga fogow deef aniga xaaladdan kuguma sii dayn karo adiga meeshaan waxaad u imaaday deef adiga meeshaan waxaa u imaaday aabbaha booskiisa si aad u buuxisid waa ku baryaa iska dhaaf gabadhaas fikirkeeda maya ma samayn kartaas waxaan day haddana deef baaroo xilli waa jirta gabadhaasaan ka fogan kare laakiin hadda kama fogan karo deef baaroo jaceylkeeda ayaa ku xeedada dhiiggaygo dhan ayay ku shaqaysaa gabadhaas haddana farahana wuuba ka baxay
deef maalintaas kadib wuu ka sii daraayay maalinba maalinta ka dambaysana qalad ayuu samaynayay booskiisa hore ayuu dib ugu laabtay soo dhawo deef xabadda jooji xafladan ku kala tagaa tii kale kulligiin saanla ayaa idinka dhigaa dhasada ka dhaqaaqa meeshan deef warsaa aw dhiigankooda dhiga meesha deef waa ku baryaa deef u kaadi war u kaadi horteeda ka leex war xabadaan ugu soo tuurin deef naa iga fogow iga horneexa dhaqsan tabada iga qabriya soo hadal barbanaad aabe tuulada inuu aadayaa la sheegay tuuladow aadamiya alloora hadday sidaas tahay aniga waaba iska nasanaabo hantidaanoo dhanna waxaan rabaa gacantayda inay soo gasho waxaan ku warsaa arrimaha barmaad deef maxma uu sheegi maayno waxba ugama sheegin sababtoo ninkaas waxba kama quseeyaan arrimahaas maxay tahay marka sababta aan ugu sheegayo iyo waxa naga dhexeeyo aan arrimahaas dhan ugu sheegayo maxay tahay eesh calaa gabar qalbiga iyo khawaaji si aan ku dhahay saa camal markay suubinaysid runtii aadaan u jeclahay waayo ani dadka waan jeclahay oo dadka kale si degan wax ugu dhaadhiciy adna tii oo kala suubisay arrintaanna waxaan u malaynaa arrin khaasa inay tahay macnaha meel kale loo gudbinaynin lamadeenna way ekaanayso waa saxan tahay aniga ayay qaasii tahay kaale cawada wasaaraddii hurdada ma dhinacaa jirta akhay hurdada dhan waa iga haadibe say wax u jiraya akhay hurdab mehelooye ma sheegi kara taas balse aniga cabsi fara badan ayaan dareemaya mana aqaana sababtaan u dareemayo adiga maxaa kugu dhac badarka tunna hawshan qabo ani kaliya miyaa qabanayni maya waa kula qabanayo sugaad maxaa u qaylinaysaa aamusa shabiga dhaas siday wax idinka yin waryaa naga aamusi kuwan in mudan idhegeyso aniga mid ayaan la yaabanaya ninka saaxiibka abajoon ah ma ba xanuunsanay sababtuu isbitaalka ugu joogo maxay tahay ii sheeg bay aniga waan fahmi lahay wax caddeena ma heshay walaalka u kaadi horta waxaanoo dhan barmanaadaa ka dambeeya barmanaad in iska dambeyn anaaba kuu caddeehayaan ku dheh anigu iyu kalsoonido arrintaasay ka ogaatay anigu tuuladaan deganay maho tuulada wax walboo ka dhacayna anigu waa la socdaa barmanaad meesha lama qof iska gadi lamadii qof wax dhan walaaqooyinaan ku dheh waxaasna anaa kuu caddeyn karaa wax walboo iga baahti anaa diyaar kuu leh waa hubtasano arikan arrintaas anaa si fiican kaagu hubasay wixii kiina adag ku raacnaa anaa mas-uuliyadeeda iskale walaalka iyu kalsoono egarke arrintan horta waa dhaceen se wadaacdin ina iska dhaaftidan ku wado markan waxaan kuu sheegaa adiga maxaad suu badabtaan ii sheegbo maxaa dantaada macnaa maxaa qaban kartaa adeer waxaan rabaa aniga baanu aabbaheed shakhsiga dilay iyo weliba barmanaad dadka u shaqeeya inaan ogaado dadka degmada ka tirsanaha u malaynaya barmanaad dadkiisa waay familkiisoo dhan waay barmanaad aawi barnaad ma joogo mudan ninka kor basaad dhinacyadaas laga baaro adinkuna dhinacyadaas laga baaro ninka
abba joonka barminaadaa ku soo wucuya ma raba inaan qabto faraha ka qaataa iska dhacee يا أنا بليس وعيا ميا وكذا هيدف نينك بريان بانقدي ساي بيديسو دادا يقرطب سطنا رادينيسو واديك سومان أنا كان نيرا راتسنيسا إيغو يما وفديجيga fadhiiso hooyo waxaan kaa rabaa ninkan inaad u sheegto aabbihiisa cid dishay iyaarkayga adoogaa cid kale ma dilin waxaa dilay eebowgiiska weyn wax walbana usugaa ka dambeeya ninkaas magow dhimayna saasuu dhahay anuka xabad kale kama ogin adoogaa waa la dila adeerka ahaana dilo sidee laakiin suuragal maaha arrintaas ma anfici karto way anfacday arrintaas aabbahaaga adeerkaaga ayaa dilay waxa uu dilin cid walba way og tahay hooyaday hadalkeedana waa run waa beentaa taas waxaad doonaysaa naftaada inaad ku badbaadiso laakiin kaama yeelaya bannaanka u soo bax hadalkayga lama gambanayo soo soco war aniga doqon noocaaga oo kale maahi oo been loo soo sheegaya aabbihiisana la dilaya waryaa aabbahaaga adeerkaaga ayaa dilay sababta u dilin cid walba way og tahay wax kalena maahan kursi ayaa aabbahaaga loo dilay doqon iyo been baa lagu sheegay adeerkaaga adiga ayuu ku doqonsaday caqligaaga yarowna ka faa'iidaystay wax walba uu rabana uu kaa samaystay orod adeerkaaga u tag weydii aniga igu soo qaylinin caqligaad ka xaaran tahay eberaa tahay waryaa aabbahaagana wax kale looma dilin waayo adeerkaaga siyaasadiis ayuu faraha la soo galay anigana arrintayda haddii la soo galo ballan waa cidaan dhaafaayo mal adiga xitaa waan ku jarjaraya midaas maanka ku hay ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है मंजिल यही है यही कारवां है जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है halo haa beeru waxaan rabaa inaan labadeenna wada kulanno suuragal ma tahay mayay imaanaysaa mase waan ku imaadaa ii kala sheeg labadada anigaa ku imaanaya ايش شحشحdan maxaa waa uma shishay naqdi صاحب جري شكله محاوي deef xaggiisa ayaanu socdaa يا taleefon ayuu iga soo wacay دمبخ دوا xilligan ma rabtaa deef inaad u tagtid sawa ya akhay khalad ma inuu xilligan aniga haddaana xaggiisa aadin asaga ayaa halkaan imaanaya saas miya adiga waxbaa ka walwalin arrintaa mar kale ma soo laabanayso aku soo daahinge adiga adeerkaa ma la hadasheeda adeerkee war qofkaas adeeraa ku tilmaamin ma adeerkayga aniga aabbahay dila anigana uqdadda igu beeray adeer hadhihin ninkaas waa abaysan adiga ma waxaad ku fikiraysaa magaalada inaa ka dheeraato
miyaad raacaysa adigu ma faraxsan tahay su'aal khaldan aa weydiinaysaa ma la hubaa taas su'aashaad inay khaldanta ila noqotay maxsalaamadaduna sidaan baa ii sheeg maxsalaamada waa kaa dhunsanta anigaa ku soo xasuusinaya deef meelaad aadaysa ma lahan halkan ayaad joogaysaa waana dagaalamaysaa qofka markuu nool yahu dagaalamaa waxaan dhinta aniga ninka markuu ku guursaday awoodna runtii goodbay deef hadalkaasu waa been aabbahay shir ayuu ku dhintay anigana hore u soo baaray aabbaha adeerkayga ma dilin yaa waxaas kuuga dhaha wiilkayga adiga qof xun ayaa tahay dadka waxay ku soo dhacan ayaad isku soo raacaysaa wiilkayga adiga maxaa kaa qaldan adeerkayga miyaa lagu xumeynaa yaabaa qofka fikraddan xun ku soo siiye waxaasi waa been waxaa jiran aya dadkan kuu soo sheegeen adeerkayga sidoo u dila aabbaha waa u jeclaa walaalkiis ayuu ahaa markii arrintaas kaa soo dhadhacsiiyey baaru ayaa ii sheegtay baaru lama dhahe qofka shukla ayaa la dhahaa waana cadowgeen waxaan rabtaa adeerkayga inay kugu darta hadalkeeda ha qaadan naagtaas waa naag xun wiilkayga aniga hadalkayga aamin dumaashi baaro dumaashideen baaro dumaashideen baaro dumaashideen baaro dumaashi baaro dumaashi baaro dumaashi baaro dumaashideena cadowgeeda dumaashi baaro dumaashi baaro dumaashideyna dumaashideyna meesha la soo fariistay may tartiib may anaga su'aal weydiinayno kaadi su'aal ayaa ku weydiinay su'aashiisa jawaab may tartiib idinka isdajiye ninka anaga su'aal weydiinayno kaadi hal su'aal aan weydiiyay adiga xisbigaaga waxaan ka rabaa muddo 20 sano ayuu fadhiyay waxaad u soo laba kaclaysan oo hadda aad dib doorashada ugu galabtaan rabnaa inaan ogaano aniga ku fahamsiinahay taas hadda xisbigeena xoog ayuu soo yeeshtay wuxuuna fahmay doorashada dhanka uu kaga leeyahay maahane si fiican warka noogu faahfaahay ilaa hadda waxba ma aanan fahma gabadhi adigu hadal aniga ayaa idin fahansiinaya dhegaysta xisbiyada aad arki jirteen adinka musuq maasuq ay wateen balse ninkan xisbiga uu wato wuxuu ku asaasan yahay siyaasad fadhisa adinka haddii aad taageertaan waxna waa dalkana dhanna wax ka bedelay marka isku day ma soconayso middaasi waa been xisbiyo badan ayaa sidan oo kale doorashooyin ku galay kadibna meel bay kaga tageen cidlaa dadkii doortay oo u codeeyey oo maalin dhan u taagnaa bannaanka marka waxaan wax soconaya ma fahansanin qalad hadalka laga fiican noo sheeg maya waxaas waxaynu fahmayna maa kamana yeelina xisbiga meeshaas ka fadhina war khaldan leh ma dhaade ilaa hadda kelmad khaldan kuma hadlo war nin khaldan ayaa tahay intuusan ninkan hadalka bannaanka u bixinin maxaad annaga noogu sheegi weyse maxaad noogu qarisay inaad nala socodsiisa ayay ahayd laakiin barmanaad siduu ku ogaaday sidayse ku dhici kartaa ii sheeg arrinkeenni inuu ogaado ma ahayn xisbigeennana wuu ku soo hor jeestay xisbi cusub ayuu samaystay idinkana indhaha ayaad ka dayayseen maxaad tihiin horta idinka hawshaan idin diri o dhan waxaad ka qabateen ma laha gabadheeda waxaan kaa rabaa siday wax u dhaceen iyadoo faahfaahsan in aad ii sheegtid aniga ma fahmin waxa meesha ka dhacay aabo aniga waxaan maqlay abajoonkoo dhahaya ragunaad hadalku ku hadlaayo wuu qaldan yahay aabo adiga meesha waa taagneede abajoonka hadalladuu dhahaya maxaad wax uga qaban weyseen oo aad uga aamustay ii sheeg in wax ka qabad sooloma aniga waxa keliya aan ogahay
abbajoonka waxa uu ku hadlayay inay ahayn wax saxan balse aabba aniga su-aashaas kuma weydiin keliya waxaan ku dhax xaqiiqada waxay tahay ii sheeg arrimaan maxaa kaloo koogtiin war heedda wax kala qallabsan waxay tahayna ilaa hadda annaga ma aanan garan siyaasaddan way qasan tahay waa run haddaadan joogeen waa inaad iskala qaaqda halkan maxaa weeye siyaasadda hala toosiyo maxay dhacay oo madax maan iskaga istaagaysa macquul maaha suuragalna maaha taas wax walba waa xaq inay ku dhammaadaan waxaan u fahmin inaad wax qaldan ku hadlaysaan meeshaan joogis malan siyaasadana waa inaan iskaga baxa aniga xataa waa iskaga daya waa iskaga baxa dee aniguna dhaqaajii hadda eedada maxaa u soo horjeysanaysaa ma ogid miya inay eedada war sibiga dhakaagiga waraajiya akhay xaggii igeeya isdad waan ku baryaa wax qaldan maana samayn dhigayso horta wax qaldan ma samaynaya ay dhaysaa markaas ayaa waalidkaaga waa ku celcelina aniga waa ku baryaa dhigayso aniga eedada wax qaldan kumaana samayn wixii ila saxnaa oo kaliya ayaan sameeyay ma ku dhageysanaya aniga hadalkayga maqal waxa waan ku baryaa isdaji horta ma aamusay man isdajinay oo si waa hadalkayga yaa warya afkiina yamyamta boobka badisan wax ma sheegaysiin miya wax fiican ku hadla almeena shabiska dhaano maxaa isku haystiin lamadiina arrimahaasna inaa ka warantiin akhallada idinku tahay labadaa qof been ayay sheegayaan labadoodan xididoosaad ayaa ka dhexeey waxaanoo dhan waxay u samaynayaan si xisbigeenna u burburiyaan arrinkaasi dadku ogaata adiga dadkan khiyaano ayay wataan wayba iska cadday inaan weydiisada ku ogaanada maba loo baahno soo maa dadkan waa ujeedaa waxay rabaan in annagana afgambiyaan siyaasadoo dhan ay gacantooda ku wareegto balse annaga taas ma oggolaanayno khiyaano ma oggolaan karnaa waa may sideen khiyaano ku oggolaannaa mudan isdeji jabigadha dadkan inaan iska qabanna ayaa loo baahan yahay haddii kale nolosheedoo dhan ayay baabi'inayaan soo ma rabti inaa horumar gaartaan marwo waxaan ku weydiinaa waxyaabaan lagu eedaynaya sax miya mise wax kale ayaa jira hadale maxaad laamusantaha noo jawaab mudana xaggeed u socota adiga sii socday halow ay mudana waa soo baxis diyaari dhammaantiin ya deef hadalkayga si fiican u dhegayso waxaan anigu ku faray oo keliya ayaad samaynaysaa wax kale ma samayn kartid inay dhigaysa marwo waxyaabaa lagu eedaynaya maxaa ka jiro adiga ninkaas xiriirka idinka dhexey maxay yihiin waxaasoo dhan yaa ogaan ayaa rabnaa sushiila iyo ninkaas hadduu xiriir ka dhexeey iyadana afkeeda ay ka qiratay idinka maxaa idinka gale waxaa laydinka rabaa hooliin inaad raactaan dadkii lagu mashquulo maahan labadaas qof iyagaa isdoontay aniga sababtan cafiska u weydiisanaya maxay tahay sababtoo weligeyba qof qalad kama gelin adigana wax qaldan ayaad aniga ugu samaynaysaa aniga qaladka amaana gelinin adiga haddaad aniga iga shikisantahay oo aad isleedahay waxyaabaa dhacaya baanuu ayaa ka dambayso waxaan iloobayaa xiriirkii aniga adiga hore noo soo dhex maray mana laga yaabo ebidka inaan ku soo xasuusto mana ku cafi doono inta aniga aan noolahay idhigeysu wiilkayga aniga siyaasaddan waxaa ku soo jira 30 sano aniga gacanteeda ayaa adigana kugu soo koriyey aabbaha wax kastoo samaynayna aniga waan ogaa markuu geeriyooda kadibna aniga ayaa garab ku soo siiyey haddana wiilkayga iga raali noqo teleefonkayga ii soo qabo wiilkaygii dhegayso ani wax walba waan kuu sheegay waxaan u baahanaa mar walba hadalkayga inaad ku kalsoonaato aanay soo xasuusata wakhti walba
هذا ما أنت قعنت أنا وجرت أنا كده إيج بتبادس صدق يا أخي سوغا لا 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 ما تعفز سيدني يا أخي سوى أنا بتأخر السبوع جوكسنا سوى fikirkan yaa keeni aan wax ma ogi xaaskaada maa keentay mise adiga aan wax ma ogi akhay xaaskayga ma ogi anna ma ogi waraa isku dayan aniga inaad taqaaladid aniga dheel ii keentay miyay afgambis maya akhay aan wax ma ogi waryaa ciyaal matida si nin weyn igula hadal aawi xaaskaada iyo ilmahaadii intee geysi aniga dheel ii keentay miyaa dheel ma jirta ya akhay waxaan asubinaysa khalad waaye adi wax khaldana haddaba ninkaas waa soo dilaysaa qaabka aad u soo dili lahayd aniga shaqo kuma lihi waxa keliyoon kaa rabaa hawshaan inaad fulisid intaas leh waaye wax kale kaama raba aniga soo fuli hawshaan adiga horta qof lagu kalsoonaan kara ma tahay waan ay akhay qof lagu kalsoonaan kara wax walba anaa kuu subinaya darso maxarta inaan kuu sameeyo soo hadal ay fiirin ali akhay aniga cabsiinin wixii rabtid sheeg marxaba baaro ayaad soo dilaysaa defna dhibkoo dhan ninka uu ka bilaawdo waa asiga xisaabtiisana waa ii dambaynaysaa aniga aqaana qaabkaan ugu shaqaysanaayo laakiin adiga baaro soo dil teleefanada dhan waa lama heli karo laakiinse maxay ta sababta ay noogu waceen dadkaas si lama filaana weliba maxaa dhacane milan gaariga halkan maxaa u joojisay milan halkan maxaad gaariga u baagatay maxaa sada macsan tahay ila hadal adiga soo marib lama filaanka inaad ogaato maxaa rabane lama filaankana wax kale ma aha ninkaada wuxuu igu soo amray adiga inaan ku dilmo inaan naftisaan ku dhaafiyo soo saababa isaadkenne milan maxay weydii rabtaa maxaa kaa khaldan adama waalatay waxbane mana laga yaaba inaan khaldamo sababtoo aniga amar qaadasoo keliyaan ahay waxaana laygu amray adiga inaan ku dilo ilaan adiga sidaad banaan waxaa jeceshaa qofka bini'aadanka inaad ku ciyaarto soo maha ma diidin aniga adiga inaan ku jeclaa weliba aanan ku heli karin biskoolada hoos iga dhig biskoolada hoos u dhig waxba haydhilaan hanay amri adiga muhiimaddeedu waxay tahay inaan ku dilo weliba isla bartaan carar dhaqso maxsigi yaa mar walba adiga waxaad caadaystaa aniga inaad aflagaadiisoo keliya maxaa sugaysaa marka maanta fursad haystaa icayno icay maxaa sugi ninkii meesha loo badnaayo un dira aniga waxaan ahayn dad gambaniga sheer ku leh iyaaba wax ninkayga dilay oo gambanigeena afgambiye adiga ayaan ku weydiinaa sushila
isdeji horta adiga marka hore xaaladdan ayaad ku jirtaa inaad buuq isgelisna looma baahno arrinkaanne kor ugu bax adiga waa ogtahay ninkayga qofka dila iyo waxaan dhan wax samee maxaa iga qarinaysaa ma ii sheegtid waayo adiga dadka saaxiibo ayaa la ahayd waana ogtahay qofka ninkayga aniga sidaas u gale iyo qofka aniga na afgembiye waxayna iga qarisana looma baahno haba yaraadeen wax la ii sheeg adiga soshilaa adiga horta isdejiyaan ku dhahay waxaan way dhaceen inaad murug kale issii gelisid looma baahna marka waxaan kor ugu bax waa ku baryaa aniga adan kuu naxaa waxaynay dhaceen aniga waa ogahay laakiin mar walba waxaan rabaa runtiina ogaado adigana qof runtii ii sheegi rabo ma tihid run ahaantii aniga horta kambanigayga si aan u badbaadiyo waxaan ku qasbanaaday waxaasoo dhan lacag darteed miyaa u samaysa adiga middaas ayaan ku weydiinaa aniga abbajoonka iyo ninkaada inaan mid doorto waan ku qasbanaa marka abbajoonka ayaan doortay laakiin arrinkan deef inuu ogaado ma raba aniga waana inaad ka qarisaa adigana kuuma wanaagsano dantaadana ma ahayn deef ah haa deef ma raba aniga inuu ogaado arrinkan waa inaad ka qarisaa haddii kalena dhib ayaa imaanayo marka waa ku baryaa arrinkan meeshaan ku dami deef wax walba wuu ogyahay yah maxaa ku hadlaysaa adiga aniga deef wax walba u sheegay oh gabadhayda aaway meelay aadda ma aqaano laakiin mar dhow ayay bannaanka u baxday okay waaya halo aabo gabadhaydii naagtan sojitaan la dhahayo sidee arrimahayga ku ogaatay kambanigana sheer 40% inaan ku leeyahay sidee ku ogaatay arrimahaasoo dhanne yaa ogaysiiyey bal ii sheeg gabadhaydii aniga arrintaasaan rabaa inaan ogaado middeeda kale arrintan aniya adigay sir noo ahayd ahba aniga ma aqaano waxaad ku hadlay sidee u hadlaysaane waayahay goorma imaanaysaa ii sheeg wax yar kadib waan imaanayaa waayahay waan ku sugayaa ha isku day inaad dhaqdhaqaaq samaysid waad ogtahay dhaawac hore inuu kuu soo gaaray ha isku dayn marka inaad baxsato lacagtaadana akoonkaaga ayaan kuugu soo shubayaa
kolley waa i wacday balse waxaan kaa rabaa maadaama aan ku imid muhiimadda halkan aad igu yartay ii sheeg maxaa daran aabahee wuu dhintay wuu dhintaa laakiin maxaa sababay maxay dhibaysaa hadduu dhintayn waa iska caadi dhib ma lahan maxay dhibaysaa in xog walba ku saabsanid aabbaha anigu waan ka warhay laakiin waan iska aamusay sababta loo dila maxay tahay aabbaha qof walboo dembiilaha oo dembi geystay qaybtiis waa inuu maraa yaa noo harsan markaan adiga adeerkaa deeg aniga waan kugu kalsoonahay waxaan rabaa hawshaanoo dhan inaad soo gebagabaysid kadibna aad dib iigu soo laabatid oo ku barya arrintaa naga xalli kadibna hoolahanoo dhan faraha kala bax nolol farxadla ayaan ku noolaanaynaa xaggeenaadina markay dhammaato aniga isoo raac alxasil waan kaa sii tegey wan imida maxaad igu yeertay ii sheeg dhulka aad taagan tahay waa dhulkii aniga iyo aabbaha aan isku haysanin haddii aad rabtid wax walba inaad ogaatid meeshii aan ku faro waa inaad tagtaa oo aad igu timaada halkaas waana ku sugaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddaba mid ayaan kaaga digayaa ha isku dayin dhaqdhaqaaq inaad samayso يلا بنانكا يا سعوي بنانكا حق كرسي ولا adiga kursigan qaad ee xagga geey ها كرسي فديسو ماشي فديسو ابيحيا هديرانين warkeyga maqashay wardi haw fariiso halkan fariiso adigana iska bax bax aniga socan ku dhahay sac war la qaado meeshan meel yalla fadhiiso sac hays martiin okay adeerkiis si degdeg ah baad ku caafimaaday yaa kula tacaalay horta saaxiibkaygiio adi adduunya badanaa ku dul fadhisaa laakiin unukana beesadaan haynaa
marka tii beeseed anaa kugu soo gura hadda waxaa lagaa rabaa adduunyadan aa haysid inaa igu soo wareejisid dhulle haddii aad u baahan tahay aniga ayaa diyaar kula ah dhul iska dhaafee dhulal aan ku siinaa oo tiro badan anigana diyaar waxay iga tahay 70 milyan gacantaada inaan ku soo war aniga lacag oo keliya ayay dantaydu tahay adoogaa khiyaanadaas wado saana sii leeshiinay ka waran beeslan u darneed aniga dad shaqo kuma lihi beesa haddaan helaayo qofkii dhimanaya ha dhinto ulujeeddadayda iyo dantaydoo dhan waxay tahay inaan horumar gaaro hanti badanna aan yeesho waayele aka baqinaan ku dhatii beeseed ani igu ogaw buush camal anaa kugu firdhinaaye aniga dadka murugtooda dhanba ma i hayso sababtoo ulujeeddadayda haddaan gaaro dad shaqo kuma lihi aniga ciddii siyaasadda ku fadhiisanaysa ha ku fadhiisato ciddii baaba'aysana ha baaba'do aniga ulujeedkayga waa hanti haddaan helo waxaad doonto waa ku siinaa hawshaad rabtidna waa ku fududaynaa waa igu og tahay hantida anaa hoosta kaa soo gelinaan ku dhahay hawa adduunya dhan waa cune shacabkan shaqo kuma lihi hawsheeda ii soo fududee lacagteeda sida uu dhaqsiyaha badan aan helo sidaan ayuu ahaa aabbaha khayaanoolo caddaysta ayuu ahaa dantiisa mahayna dan kale kama fikireen ulujeeddadiisa dhan hanti inuu helo ayay ahayd qofuu ka naxaayay haba yaraatee ma jirto aniga xataa wuxuu isku dayay inuu idilo muxuu idili raba mataqaanaa 25 milyan oo keliya ayuu doonayay nafsadda inuu ii dhaafsiiyo aabbahaada nin fiican ma ahayn war haddii laisdilaaya xataa 25 milyan oo keliya maa qof walaalkaa u dilaysaa adiga midtaas ma samayn lahayd ii sheegaan ku dhahay ma 25 laysku dilaa adigane doqon ayaad ahayd maskaxdaadana ma joogin war aabbaha nooca aad arkaysid ayuu ahaa khayaano waa dhammeeyaan ku dhahay dantiisoo dhan waxay aad inuu lacag yeeshto oo keliya bes qofuu ka fikiraaya ma lahayn walaal ma aqoonin qof uu yaqaani haba yaraatee ma jirin aniga haddaan isbeddelayna aabbahaaga dartiisa ayaan isku beddelay markaan arkay inuu xun yahay waddada wanaagsan ayaan ku soo dhacay maxay soo fiirnaysaa sewa yaakhay khaladkaan gali maxaa waay abaa heshiisaan la gali kadibna walaalkiis raba inas dilo saan in lagu subi waa kurooneed adooga iska dhaaf yaakhay kaas abaka walwal aan soo fiirnin waa saxneed wixii dhici lahayna way dhaceen annaga waan ku qasbanayn tallaabadan inaan qaadno waddo kale oo noo furneed haba yaraatee ma jirto war adiga horta ma la socotaa lacagtan aad ku raaxaysan jirtay aniga inaan kuu soo shaqeeyey intee ka keentay war muu haysid wiilkaygii aamus waryaa waxaad tahay nin khiyaano badan maxaa kuu kelif banaanku baxad sax yalla banaanku bax dhaqan xumadan iyo khiyaanadan miyaad aniga igu soo korisay waxaad tahay adeer xun deef isdeji haysuusan ha igu qasbin howlo aan iska dhaafay inaan dib ugu soo laabto ay ani hooshii ii dirtay waa soo dhammeey baaruuna bannaankan u diray laakiin khabya ku hortaala khabyadaanna waxaa lagaa rabaa inaad dhammaystirtid maxaa u joogtahay marka maxaa sidaan u samaysay adeer ninkan inaan dilo dad maxaa kugu kalifay aniga halkan waxaan u imid adiga inaan ku dilo laakiin ninkaana gacanta iga dhacda ha u bixin waana kaa sii tega nabadii cashirka adaa hore u dhigay laakiin maxaa u dishay sidan maxaa u samaysay adiga
ma waalan tahay maxaa u samaysay kumeel fiiri kaale mar hore inaan ku dila ayay ahayd waa halka arrin oo keliya aniga aan ku khaldamay siyaasaddane noocan way ku tustaa laakiin hadda kadib waxaa igu ballan ah qof inaysan iga badbaadin wixii iga haroo dhan waan laynayaa ciddii iga soo horjeesato iima noolaanayso ballan waayo tallaabadaas waa inaan hadda ku dhaqaaqaa mar ayaan qalad galay laakiin mar labaad inaan qalad galo lagama yaabo intee u socotaa hadda intee u socotaa kaalay kaalay halkee aadday siyaasadda noocan way ku tusaysaa waxaad tahay bukaan socod waxaad dishay aniga aabbayo adigu kula dhashay waxaad kaloo iga dishay baaruudeyda intay goorgoor tahay halkaan isaga tag inta aanu kula dhaqmin sida wuxuusnimadaheed aa uga dhaqanto aniga aabbahay iyo weliba jacaylkayga waa kuu dan waxaad tahay nin aan danqan damiirna aan lahayn wakhti walbana fiiriya dantiisa iyo lacagta hortaalla xayawaanka waad ka liidataa wiilkayga aniga wax walbaan samaynaya adiga dartaa ayaan u samaynaya wax khaldanna ma samaynaan nin xanuunsanayaa ta weliba xanuun la ildaran aabbaha wuu la socday waxa annaga naga suurogeli karo waayo danaheenna ayuu ka soo horjeestay annagana waddadeenna ayaan ka leexinay sababtoo ah xisbigan dhib ayaan ku soo dhisnay adigana looma baahna inaad ka tagtid wiilkayga waa ku baryaa baaruna maxaad u dishay taasna ii sheeg adigay rabtay inay kaa fogaysa aniga ciddii arrintaas isu daydana waddadayda ayaan ka leexinayaa adduunyadana ma ii sii saarnaanayso wararkii ugu dambeeyey ee haddana soo garay ayaa waxay sheegayaan buundo korkeeda in laga helay ninka lagu magacaabi jiray abbajoonka meydkiisa ilaa iyo haddase lama oga cidda ka dambaysay dilkaas booliiskiisa baaritaan ayay wadaan wixii warka soo kordha annaga ayaa dib idinkaga soo sheegi doona cidda dilkiisa ka dambaysay balse meydkiisa ilaa iyo hadda waxuu yaallaa qaybta c i d da mararka qaar nolosha waxay kugu qasbaysaa waxyaabaha qaar inaad beddeshid deefna noloshiisa wuu beddelay हम थे कहाना याद कर फिर से मुझे ईजाद कर खोल देना मुझे आजाद कर खोल देना मुझे maxaa kugu dhacay maanta hore ayaan ku raadinayo deef adigana halkan ayaad joogtaa maxaad ugu soo dhumatay meeshan qofna kuma oge nafteeda cidlada raallikaa aniguna magacayga waan bedela deef leema yidhaah nin kalead baad iguubaysa haddiiba sidaas taa adigana magacaaga aad bedelatay anigana magacayga waa inaan bedelaa sababtoo magacaygii magacaaga waa isku lamaan soo maaha qisadeedu waxay noqotay naftu naf bay rabtaa naftuna naf kalay rabtaa sababtoo aniga deef waan jeclaa balse isaga baaro ayuu iga doortay